بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan isku daynaa inaynu sawirno cashirkeenii inoogu horeeyey archicadka. waxaan sameynaa hadduu alla yidhaahdo saad ku arkaysaan nashqada halkaa ku sawiran waa guri standard ah. waxa areadiisu ay tahay dhinacna 15 buu yahay, waad arkaysaan, dhinaca kalena 14 mitir buu yahay. areadaas baa waxaa laga soo saaray 1 2 3 4 qol uu mid yahay mid master bedroom, kaas master bedroom yahay, iyo dining roomkii, living roomkii, kitchenkii, veranda iyo qaybta passagekii. intaas baa laga soo saaray. gurigan wuxuu wada uu ku leeyahay dhankaas, verandahaas wada ku leeyahay, xaggana wada ku leeyahay. waayahay gurigan wuxuu u design garaysan yahay si waxa weeye mataqaana macquula. qaybta waa halka laga soo galay jaranjaradii laga soo galay weeye. kadibna waxa weeye haddii familygu dee gudaha toos buu halkaa uga galayaan oo albaab kale halkaa ku jira. kan isagoo farandii yahay ayaa farandaha haddana albaabka gudaha laga sii galaya. waad ujeedaan xaggan kitchenkii baga xiga, xaggan faranda kale xigay, xaggan waa qolalkii. marka sometime waxaa imika la sameeyaa guryaha sida casriga ah in qolka living roomka oo kale dibadda lasoo mariyo si aan xagga dambe guriga lagama dhigo sabab badan kuley awgeed, iyada oo waxa weeye ay guriga yani waxaa degan yani caruurtii, dumarkii, wixii oo dhanba alaabtii iska disturbal ah umeer fiicna. haddii dee waxa weeye ragga khiyaar kula socdaan oo kale xaggan ka soo galaysa, ama saaxiibada ay kale ciddii kusoo booqataba, marka gudahaas uma arkayaanba. okay, qaybtan farandaha marka saa usoo gashada albaabkan living room halkan ku yaala, gudahaba kuma yaala, xaggan dibadda faranduu ku yaala, halkan ka soo galaysa. xaggan marka kasoo gasho qaybtan waa fadhigii ilaa qaybtan. qaybtaa kalena waxa weeye halkaa line yar baa ku jira. lineka hadda macnaheed waxa laga wadaa waa arka yar. qaybta arkadaana markaasaa usii yar gasho qaybtii dining roomkii ee cuntadii ayaa halkan yaala. waa cuntada marka la keenayo halkaa lagama soo galayo, iyadna sidoo kale way nidaamsan tahay. kitchenka marka cuntada laga soo qaado toos baa loo soo soconaya, halkan baa toos loo galaya, miiskana cuntadii la dhigaya, halkaasna waa la ka noqonaya. waayahay intaas weli waxaan haynaa. sidoo kale marka aad fiiriso qaybtan waad ujeedaa qaybtii passagekii la marankii weeye. qolkeen waa bedroom, kana waa bedroom, sidoo kale kana waa bedroom. saddexdan bedroom toiletkaas bay adeegsanayaan, laakiin kan waxaad ku qoran maxay master bedroom. waa ka yar duwahay markaa isagu uu yara casiraysan yahay. xaggana soo galaysa waa kii hooyadii aabaha, halkana soo galaysaa xagga soo gasho. waad ujeedaan qaybtan waa qaybtii washing basinkii iyo cadayga dhaqidii ilaa iyo qaybtii kale suugii oo u gooniya. waayahay gurigu saas buu design garaysan yahay. waad arkaysaan qolkiisu waa guri dhisaankiisana anaas kale. halkan waxaad ku arkaysaan in gurigu angle isaa u go-an yahay. halkaas saas buu usoo go-an yahay, saas buu adana socdaa, haddana saasan u baxsan yahay, haddana sidan u go-an yahay, sidan usii go-an yahay. taa macnaheed waxa weeye hadhow toole gurigaas wuxuu noqonayaa wajahadiisa wajahad aada qurux badan. waayahay bilaabna markaa waxaan isku daynaa marka inaan balaa kaa sameyno ilaa iyada intaan dhamaystirayno aan kan ku dhamaystirno insha allah alkarim ayaan sameyna haddii la yidhaahdo. inoo soo qaad softwarekeena archicadka. haddii new project baanu sameynaynaa, waxaan markaa ku jiidanaa new. waayahay sidii awalba aad taqaaneen waxaynu sameyn jirnay in unitka oo kale aynu bedelno oo waxa weeye millimeter inta badan ku qoranya aynu ka dhigno meter. sidoo kale dimensionska sidoo kale isagana meter aan ka dhigno. boxka yar baa markaa wax lagu dhex sawiraa. waxaa kuu suura gelaya boxkaas hadhow toole sectionska haddaad sameynayso inaad ka wada arki karto. halkaas oo ujeeda waa north elevation, sidoo kale xagga waa east elevation, west elevation, south elevation. areadaas markaa waxaynu ku dhex sawiri doonaa haddii la yidhaahdo.
waayahay unitka markaynu saxayna awal badi waxaynu tegi jirnay qaybtan option project preferency working unit meter decimalka 2 baynu ka dhigi jirnay meter decimalka 2 okay baan siin jirnay sidoo kale inta badan isna waska xagga dimension isku daa waska meter waayahay inta marka aad samayso de kulli gidaar baad wax ku sawiraysaa gidaar maadaama wax ku sawirayso not link baan orana macnaha tusaale ahaan marka aan wallkeena furno macnaha markaan wall click aan ku siino ee setting dialog ayna taagno marka not link baan dooran jirnay halkan thickness ka bedelo marka guriga aan design garanayna sameynay waa guri bulkeetiya maadaama bulkeetiya thickness-kiisu wuxuu noqonayaa 0.2 sida mid guriga height-kiisa 3.4 baan ka dhigay okay qaybtan temperature position-iska height-kiina 3.4 baan ka dhigay thickness-kiina 0.2 inta kale marka waxba hadda ugama baahnin okay see hadda markaad soo qaadato line-kaaga sida aad u sawirto waxaad arkaysaa inuu line-kaa jaamidka gudaha noogu soo jiro marka line-kaa jaamidka mar walba waa external line waxaan iskaga jeedinaa maxay reference location-kaas baan iskaga jeedinaa xagga sharo markaan dheer normal area-da guriga dee marka horeba waad ogeydeen oo area-da guriga hadda maxay noo noqonaysaa dhinac 15 buu yahay saad u jeedaan dhinacaas 15 buu yahay dhinacana muxuu yahay 14 buu yahay waa yahay marka line-keena aan soo qaadano okay waxaanu gelinaa marka dhagaas 15 buu yahay sidana sidoo kale wuxuu u yahay 14 saas wuxuu yahay maxay 15 saasna wuxuu yahay maxay 14 waayahay hadda waad ujeedaan oo dimensionskiisa markaad fiirisaan waa 15 halkaad ujeedaan 15 way halkaas halkan kale sidoo kale maxay noqonaysaa 14 2 decimal place waayahay inta marka aad samayso waxaan isku dayaynaa sidii aad ku arkaysaan sawirkeena kulli qaab baa loo sameeyaa dalooyinka kale layman baa la iska sii daayaa hadda tola laga dhex gooyaa waayahay sida halkan arkaysaan waa 4 meter okay iyo line-kaas oo 4 ah okay marka waxaan sameynaa inta badan snap gaarkaas baan adeegsanayna waxaan tagaynaa horta mar walba distance-ka markaan tagno tusaale ahaan haddii aad sameynayso qol 4 meter haddaad sameynayso gidaar ah distance-kiisa thickness-ka gidaarka la raacay 2 baan raacinayna markaa oo waxaan oranaa 4.2 oo kale aan oranayna 4.2 markaan okay siino laakiinse line-kaaga xageed ka bilaabaysa eka start from midpoint ma baahin okay start from end point kaas waa inay calaamada inoo saarato soo maad arag waayahay marka gidaarkeeni markaad fiiriso halkaas ad arkaysaani line-kii jaamidkii ma guduhu inoo soo maray moogta dibadda inuu kaamara mar walba raagsan saas baa marka cabirka sax kugu noqonaya imika waad ujeedaan tusaale haddii aad cabiraysaan internal dimension-kaas here to here waa 4 meter you see waayahay taas waa mid sidoo kale sidoo kale kan number 4 meters buu noo yahay halkaan u bixi line-kaagan external-kaana dibadda iska maray waay intaa marka aad samayso sidaad halka sawirka aad ujeedaan iminka line-ka sawdheer iyo kaa sawdheer baa kuu samaysay sidaa daraadeed suuligan iyo qolkan iyo qolalkaasna haddeen aynu ka goorayna sawirkeena waayahay iminka kasoo qaad suuligeenan markaad fiiriso halkan 1.9 buu yahay thickness-ka gidaarkeena waxaan ku darsanaynaa 2 marka 19 1.9 markaa 0.2 ku darno waa 2.1 buu noo noqonaya waxaad tagaysaa maxay snapkeena waxaad dooranaysaa set snap point value-gaas
halkaas baa waxaynu ka dhigaynaa 2.1 okay waan siinaynaa okay markaas siinso taa micnaheedu waaye hadda linekaagii wuxuu ku siinayaa linekaaga oo ah maxay linekaagii 1.9 internal dimension iska haddaad fiiri tiraan 1.9 waad ujeedaa 1.9 weye waayahay qolka inoogu xiga waxaad arkayseen inuu isaguna yahay 4.8.2 giisaan aan ku darsana gidaarka 4.8 marka lagu daro 0.2 isna wuxuu noqonayaa imsuu noqonayaa 5 buu noqonayaa isna sidoo kale 5 kiisi maraacaysa okay see halkan ku qabo centeralkiisa ku siinaya start in the point kaasoo kale inuu ku yahay linekaaga soo qabo waayahay linkeena imika linkan jaamidka ayaa gudaha inoo marsan moogta waa inuu dibadda marka mar walba inaga maro waxaa samayn kartaa haddaad imika helaad galiso dee outside ka dhigto kale sax waa iska sax buu noqonaya waayahay waa inuu 4.8 cabirkeenaas markaa inoo noqdaa haddii uu ka batana waxbaynu ka bedelan hadda 5 baynu hayso maad arag marka waxaan u baahannahay in linkeenaasi mar walba inoo noqdo maxay waxaa inoo noqonayaa maxay snapkaa tegaysaa halkaas 5 markuu inoo yahay eed wallkaaga soo qaadato imika halfka noo doono ma filaya halfka nooma doono snap between intersection halkaas way between intersectionkaas hadda waynoo sama waad ujeedaa 4.8 waayahay 4.8 maadaama inoo yahay waa intaan u baahnayn okay sidoo kale markaad sawirka markaad fiiriso qaybteeda suliyer baa ku jira 1.4 ka 1.2 giisa baan ku darsanaa 1.6 baan oranaa kaa kale wuxuu noo noqonayaa 4.2 markaas noqona way marka waxay noqonaysaa inaad allahu mustacaan aad soo qaadano wallkeenii ama snapkeena tegaynaa kadib waxaan halkaa gelinaynaa snap valuegaas waxaynu gelinaynaa maxay 1.4 kagi 0.22 marka ku darsan 1.6 buu noqonaya 1.6 baan okay siinaynaa marka 1.6 waxay noo noqonaysaa kaas buu noo noqon soo darag taan halkaas soo xidh external dibadda nooga bixi linekaas sida lamida waxaan tegaynaa snapkeena waxaan gelinaynaa isna sidoo kale 4.2 baan gelin si gidaar 4 mitir iyo internalgiisu yahay noogu samaysmo kan kalena waa wakaas waayahay markaan u baahana inaad hamishagiisa sidoo kale aada saartana waad ujeedaa 4 mitir buu inoo yahay soo ma waayahay marka uu inoo samaysmay imika qolkan iyo qolkan kan waa noo samaysmay waayahay marka hadda waxaan isku daynaa inaan gidaarkeena waxoogaa 2 mitir baan saa uga soo noqonaynaa halkaas baan noogu jaraysaa kaasna sidoo kale farandahaasna waa dhinacna 3.5 yahay dhinacna wuxuu yahay maxay 1.1 waayahay imika 2 haddaan saa u dhaqaaqayno sidoo kale waxaad tagaysaa snapkaaga matagaysaa 2.2 geli enter c
okay qaybta hoos ma sixi doona marka hadhowto okay snapkaaga markaad tagtay sidoo kale ee doorato 1.3 kasoo qaad inaad dooratay 1. ama 3.7 ku noqon snapkiina 3.7 waxaan doornay macnaa 3.5 iyo 0.2 gudaha u darsanaa okay I don't think it's okay 1.1 baan isna sidoo kale dhabti hoostiisa 1.3 oo kale dhaqaaqaynaa waayo 1.1 ka 2 baan ku darsan okay halkaas baan ku xidhanaa way inta marka aad sidoo kale samaysana haddii aad dimensionkiisa iska saxaysatay waa ujeedaa koorna ilaa koornahaasi waa 3.5 koornaha ilaa iyo hoostaasina waxay noo noqotay 0.1 xogoo inaga yaraan salkaas iyo waayahay waxaan sameynaa markaa waad isticmaali kartaa adiga oo qaab kala duwan baa isticmaali kartaa haddaad imika saa breaking aad tiraahdo ood groupkaas si aan group tiraahdo kala jebiso ood ka kliksiiso oo dee control plus d haddaad doonto dheh control plus d 0.9 marka 1.2 lagaa rabo maxay noqonaysaa okay kasoo qaad inaad snapkaaga tagtay haddaad tusaale ahaan aada gelisaba 1.1 1.3 ba geli 1.1 waxaan ku darsanay macnaha 0.2 oo thickness ah gidaarkan aad ku jiiday halkaasoo kale noqoto soo saamo saa markaad u socotay ayaa waxaad gelisay tusaale ahaan oo kale 3.7 interbasis samad garan halkaas baa noqotay waad xidhay markaad tusaale ahaan markaad cabirtay waxaad ogaatay halkaas ilaa halkaas inay ku tahay maxay 1.1 kii aad doonaysa halkaasna ay ku tahay maxay 3.5 kii aad doonaysa taas waa mid waayahay hadda waxay noo haray kitchenkaas baa noo haray kitchenkaas saas 2.8 maadaama uu yahay thicknesskiisaan ku darsanaa 3 baa noo noqon isagana 2.2 ma noo noqonaya waayahay waayahay marka waxaan gelinaa isagana isna 3 baan gelinaa saasna value-gan 3 noo geli okay see بدون ترسم وقت هالكاس نظارة تو مرة انت ادورته هو اصلا 2.2 2.2 بقلي ترسي 2.2 مرة هالكا اي تايم حقا ندى واحد كل حرمي ساوند 3.7 كاي 3.7 بكل islaamka waxaa ku daran 3 markay ku dooran tahay uu kaasi 3 noqdo uu kaasina ku yahay 2.2 soo sax wey kan marka saa tiraado waayahay gidaarkaas markaan fiirino intuu yahay iska hubina mar walba 2.2 sax wey laakiin halkan muxuu jiraa 2.8 sax wey self-text 2.8 ku jira marka line-kaaga marka soo qaato dee kan aad ku jiido ee soo socoto dee waxaad gelinaysaa maxay
ايش 2.8 and point 2 gii thickness kaan waad ku darsanaysaa waayahay 2.8 marka 0.2 ka waa 3 baa kadib line-kaaga dee saas buu raacay soo laas buu hadlaa okay and kan waad ujeedaa sidoo kale marka waayahay iminka markaad dimensionska aad fiiriso saasna wuxuu yahay maxay 2.8 kaaga waa kuu sax saana 2 meterkaaga intaana waa kuu sax waa kitchenka macnaha waxay saan 2 meter buy saana 2 meter state internal dimensions ku yahay waayahay marka inta aan sameyno waxaad ujeedaa in kitchenkaas markuu kaa yahay line-kaas halkaas inoogu soo xidhma intaan albaabka yahay intaan 1.5 noogu soo dhaqaaqi karnaa line-keena aan iska xidhin karnaa de soo lahaan oo kale iminka halka waxaan u baahnay inaan dining room living room ka saarno laakiin qaybteeda passage-kaasi ee albaabka laga soo galay 1.5 it is enough 1.5 waa caadi wey waayahay iminka tusaale ahaan oo kale 1.5 kaasi marka aynu 0.2 ku darsano 1.7 buu waayahay dhankaana waxaan dhankaan halkan noo gidaarka noogu soo waayahay marka aad fiirsaha hadaba dining roomkeena imika fiiri imika line-kaas way noo sawiran yahay laakiin laga bilaabo internal dimensionska halkaa ilaa iyo halkaas waxay noo tahay 8.7 mala fahmay 8.7 sidana wuxuu u yahay 4. maxay marka xaggan sidan 8.9 maan odhanaynaa sidan waxaan odhanaa 0.2 gaa marku darsanaa 4.7 bayna kaasina noqonaysaa 4.7 inteena markaa passage-ka waxay noqonaysaa halkan loo soo galay waayahay marka intaan aad cabirato imka line-kaaga haddaad halkaa kasoo bilaabato oo sidaa u watiraado soo madara imika haddaad inta yar cabirato soo haddaad halkaa ilaa halkaa cabiratana 3.9 waayahay 3.9 marka aad 3.9 marka inta aan ka jarno 3.9 marka intaan ka jarno maxay noqonaysaa 5.5 miya waayahay hadda tusaale ahaan sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad dee halkan walkaa ka qaadato soo imika intaas waxaad gelin kartaa 8.7 kaaga 8.7 tusaale haddaad geliso ama da stretch baad sameyn kartaa moogta imika stretch baad sameyn kartaa waxa kaaga fududba inaad stretch sameyso ood kan jiido kaa markaad jiidayso horta angrubles ka dheh suu qaybtaa kale kaaga hadho intaa markay kaaga dha kana qaybta kulaad gelaysan yahay edit tag kadibna waxaad ku jiidaysaa reshape kadibna stretch doono kan markaas soo qabo saa u geli soo madara halka waa 0 ilaa iyo maxay 8.7 marka 8.7 marka 0.2 bayno 8.9 oo kale noo noqonaya soo madara waaye okay dhanka markaad fiirisana waxa 4.5 kuna 4.7 nooga dhig si thicknesska inoogu darsamo waayo ama 4.5 keena inoogu daa si space yar ugu soo hadho guriga la galayo waayo intaa marka aad socoto halkan sawirka saad ku arkayso imika intaa yar waxna macnaha 3.5 ka yarweydintaa 3.5 ka kadibna halkaa baad kusoo xiraan waayahay 3.5 inoo geli markaa halkan maxaa nidhi 4.5
4.5 keenii marka aynu sameyno enter siino qaybtana nidhaahno 3.5 enter siino halkan ku yar xidhmaysa waayahay halkan marka aad ku xidho qaabka uu noqonayaa muxuu noqonayaa imika intaa yar way noo xiran tahay intaa yarna waa qaybtaa yaree xoogaa gidaarkaaga yara durkin 1 mitir baa dhanka uga durkin waa arkeer baa loogu talagalo hadhow toole waa gidaar yar oo aad dushiisa arkeer baa la marinaya okay marka waxaad sameynaysaa hadda saas buu kugu dhanyahay dhaanay imika waxba kaama dhinaba imika line-kan waa iska dhex saaraynaa waa kan waxaan u baahan yahay sidoo kale halkaa farandaa ku jira farandahana sidoo kale dee qaab ku noqonaya waad ujeedaa imika 3 mitir oo saas noqonaya kan waa 3 mitir faranda intaa ayaa baa soo haraysa hoos buu uga soo go-ay intaas sax intana 2 mitir buu ka go-ay marka farandahaas 1.9 way balciiso dhererkiisuna waa 3.1 waayahay snapkaaga tag snapkaaga ma tagto 1.9 kaagaasi 0.2 marka kasoo bato ma noqonayso shooda kaagaas halkaas ku xidhno weliba dibadda company external line-ka kalaas halkaas ku xidhno ha ku xidhmo laakiin gidaarka hoos baa loo soo yar durkay 1 mitir ka soo qadina hoos usoo durtay waayahay 1 mitir oo mactigna siisu ku jiro 0.8 macna ima gidaarka baa tiri kaasuna external iska bixi soo dar waaye marka maxay noqonaysaa inaan qaybtan iska goyno qaybtaa qaabka loo gogoyo hadda rabaa markaa insha Allah baranaynaa tusaale ahaan oo kale waxaad sameynaysaa waxaad highlight garaynaysaa tusaale ahaan qaybtan external line-ka dhan bay noo highlight garaysa maanta waxayna oranayna marka hore ungrouped baan ka dhigayna marka aynu ungrouped ka dhigno ima gidaarkaas keligii baa noo highlight garaysan kana markaas ka goyna kana keligii baa noo highlight garaysan soo marka qaybtan waxa loo yaqaanaa split baa loo yaqaanaa split waa goyn markaad goynayso iska soo durkiso geerkan ku yar qabso intaas iska go intaan ma rabo intaan markaa iska goynayso dee right click si delete taabo kan waa sidoo kale snimka markaa taagto okay qaybtan doorto right click si delete kale sorry marka highlight garayso qaybtan snimka splitkeed goynaysaa waa ka qaybtan kanaad ku jiib inta markaad goynayso tusaale ahaan oo kale waxaa right click si delete deh kana sidoo kale dee waad iska saaraysa kana waxaad oona split markaad leedahay halkan ayaad ku qabsan linkaaga right click si click okay waxaa ku haray qaybtan right click si splitkiisa ma halkaana ka go xagana ka go badan baa kaago hadda saatara ilaa xagga shaqaynta kaago ay sameynta haba go-da intaas ma ugu baahnaynba waa split deh kan halkaa ku jiid qaybtan dooro qaybtaa dooratay qaybtaaba ii reebaatay qaybtaan iska goysay kana waa lamid sidoo kale waxaad splitkaa samacday halkanaad ku jiiday linkaada qaybtanaad ku jiidatay delete baad raacisa waayahay markuu gurigu sidaasoo kale ku yahay xagga waa farandihii halkana waa farande halkan waa albaab weyn oo laga soo galayo imika
dhisaynadii waa iska sidaa. halkan waxaa ku haray laakiin suuliyaashii markaad fiiriso tusaale ahaan kan oo kale lab u kala goay maogta waa labada qayb waa linkaas ku haysta, laakiin kan gadaal baa loo sameeyaa 1.4 sidaas buu yahay, sidana 1.5 buu yahay kasoo qaad. way suuliyaha markaad u baahan tahay tusaale ahaan oo kale snapkaaga baad tagaysaa, waxaad gelinaysaa maxay 1.7 oo kale 1.5 thickness-kan ku darsanaynaa. saas markaan idhaahno saa markaa taa ila wall baa haystaa gidaarkaad ku qabsatay. marka qaybtan splitting aad ku goynaysaa tusaale ahaan oo kale waa highlight. marka horese waa highlight garaysanaysaa, splitkaa tegaysaa, iga goobaad leedahay qaybta waa baraaday. sidoo kale hadda qaybtan iska goo qaybta marka qaybtaan iska goo. right click si delete. marka delete taraa kana waa suuliya yaraa. marka intaa aad samayso waxa kugu xigaya wuxuu noqonayaa maxay, inaad samayso albaabadii foundationskii wixii aad ma samayso. waayahay halkan waxaad uga jeedaa albaab waa koo, kan waa albaab dhammaan wada albaabaad ku xiraysa. way albaabka da 0.3 ma dhinacyada laga soo kacaya. haddaad tusaale ahaan aad snapping-ka doonto 0.3 dhinac walba ka soo kaca ama 0.3 oo qeyb qurxoon maadaama thickness-ku yari 0.3 markaad tiraahdo, laakiin halkan along the entire element dheh meel kasta ku gooy. saas entire element meel kasta ku gooynaya. waayahay dhoorka markaad tagto single dhoorkaas uma intaba waxba wada saaranta. single dhoorka heightkiisana isna sidoo kale waa caadi. waayahay intaasa iska dhaa. waayahay albaabka waxaad u yeeshaa meelihii handalkee la qabanayay. sidoo kale albaabku noocuu yahay halkan ka dooran kuwa ma ka soo qaad mid kamida kama ka soo qaad. okay angalka uu furmayo kale haddaad u baahan tahay albaabka yani half inuu furmayo kale ama angle 45 ama angle 30 kolbada waxa weeye albaab kolba si uu furmayo waad dooran kartaa. waayahay imika tusaale ahaan oo kale kitchenka oo kale markaas aad fiiriso centerku imika haystaa moogta hore waxaan soo sheegnay in koornaha haddaad ku yarjido koornaha qabsanaysid, kana haddaad jeedna koornaha kale qabsanaysid, kana haddaad ku jeedna koornaha kale soo wadaad. albaabka markuu noocaa noqdo waxaad dareemaysaa inuu yahay maxay waxaa kamaad ujeedaan albaabka hadeer waa furan yahay soo arag albaabka hadeer waa inoo furan yahay furnaanshaha waxaad ku garanaysaa de angalka teeliyo imika albaabkaasi furay. haddaad sidan u fiiriso oo kale soo arag albaabka waa hadda waa furan meeshii yare la qabanayna waa tan de meeshii lasoo riixay. marka albaabka waad xidhi kartaa waad furi kartaa. waayahay noogu noqo markaa balaankeena maanta balaankeen weyn cashirkeenu. daaqada albaabka markaad furto angalka de haddaad 90 tiraahdana waa iska xirmaya waxa weeye 90gaas waana iska xiri kartaa. waayahay
kaas waa albaab. sidoo kale dee kan laftigiisu meelaha centerka oo kale albaab noo dhig. centerku ku yaala waan filayaa koornaha yar buu xigaa. waayahay okay, albaabka markuu furan yahay dee qaabkaas buu sawirmay karaa. waayahay kana sidoo kale aad ujeedaan koornahan kaasoo kale qabo, sidan usoo kala fur, kana sidoo kale dhammaan tignas albaabka waxaan ujeedaa inta waxaa kasoo albaabka wuxuu kasoo durkayaa 0.3 ood ujeedaan ma filaya noo calaamadeysan yahay. waayahay kana sidoo kale noo koornahan kale noogu qabo, kana sidoo kale ku qabo, suuliga noogu qabo, albaabkiisa in la yareeyo ayuu baahay oo 0.2 laga dhigo kale yaa noo fiicnaanayd. waayahay kana sidoo kale albaabkiisa waxaad nooga dhigtaa kana albaabkana u samee. waayahay albaabadii kuwaas markay yihiin okay, albaab kale halkaa ku jira. albaabka centerkaas ku dhacaya isna jira sidoo kale. albaab kale halkan jira. waayahay kuwaas markay albaabadii noo yihiin kuwan hoos baa loo dhigi doonaa insha allah kariim. markuu balaabku saas oo kale noo yahay waxaan sameynaynaa markaa daaqadahan ku darsanaynaa saa loo fahmay. waayahay daaqadahan ku darsan karnaa. sidoo kale waxaan sameyn karnaa inaan islaabkii dee foundation kaan dhigno. imika tusaale ahaan oo kale foundationka tusaale ahaan hadda uu yahay 0.45 oo kale ama 0.5 aan ka dhigan karnaa caadi waaye. dhulkan hadda wuxuu kasoo kacayaa 0 inta haddaan ku jiidno tusaale ahaan oo qaybtan aan ku jiidno bolinekaas waxay noqonaysaa taa micneheed inaad koornaha ku jiido ood koornaha tagto ood koornaha kala tagto ood koornaha kala tagto ood koornaha kala tagto ood koornaha kala tagto koornaha tagto koornaha la timaado koornaha la timaado. soo wada arag. waayahay haddaan tusaale ahaan marka aynu fiirino 3D-giisa halkaa waxaan u jeednaa maxay inuu tahay maxay inuu yacni sidaa gaadir foundationka uu noo saaray. waayahay
waayahay daaqadaha sidoo kale saad halkan ku arkaysaan angalkaa yar iminka aan qaluucinay laftigiisa 0.5 kaas oo kale halkan waa ka jari karaysaa sumaad fahmi adigoo isticmaalaya in waxaad isticmaali kartaa 0.5 kale hadaad isticmaasho snapka tag 0.5 okay siisay 0.5 markaad aad ku jiiday doortay sidoo kale dee distance-ka 0.5 kaagaas marka splitting waad ku sameyn kartaa tusaale ahaan oo kale gidaarkaad soo qaadatay way culayska inta badan waxaa iskale softwareka iskale dee splitting baa isticmaaleysa macnaha marka horeysa waxay noqonaysaa inaad helaad faysto kadibna splitting aad ku jiido gidaarkaadana doorato oo tiraahdo qaybtan iyago sidoo kale qaybtan aad doorato splittingka sidoo kale aad ku jiido ood iska reebto maxay qaybtaan iska reebto oo tiraahdo ka bax meesha qaybtan waa lamid inaad splitting isticmaasho ood qaybtaan ka goosto way يعني 50 سنتيمتر كنت سنتيمتر بس صار حوالي ولا حتى واي هي هذا روح اللوحة على الدقة دي اوكي دقدها markaas noo haray daqadana waxaad noo doortaa kuwa levelka noo doorto iyaga angalkaad furaysa iyo howlahaas sax kalaad ka galaysaa waayahay mar walba dee centerkaas ba inoo fiican oo snapkaynu tagaynaa halfka ma doorno marka half aan doorno gidaarkeenu baad eeganaysaa halfka markaad doonayso halkaa waxaad ku jiidaysaa maxay between intersection point kasta imankan centerkiisa kaas weeye soo kan waxay noqonaysaa centerkiisu kaas ma noqonaya kan centerkiisu kaas waa farandihii allahu mustacaan centerkiisu kaas ma noqonaya oo marka tusaalahaan dad daaqadii soo qaato centerkiisu kaas ma noqonaya sidoo kale kan dee centerkiisu xaga xabad daaqada ku taala asna laba ku yaal ujeeda centerka halkan dee laba daaqadood baa lakala looga baahayay midkoodna ha halka qaybta gee qaybta kalena way kuwaas marka daaqadahay noo yihiin kitchenkana sidoo kale daaqada centerkiisa dee kaas weeye
intaas marka uu inoo sawiran yahay. tusaale ahaan oo kale markaad daruunka inaad fiiriso haddeer waxay naga dhiman inaan materialka gelino fardayaashana waxa wey dee fardayaashu waa wallkaasi hadhowta waxaad isticmaali kartaa wallka inaad yareyso wallka imika 3.4 buu inoo yahay 3.4 yani gidaarada kale guriga muu lamid yahay la dharar yahay waad gaabin kartaa marka wallka dib baad u gaabin kartaa labada wall waayahay. sidoo kale waxaad samayn kartaa objectiska tagaysa marka materialka aad u baahantay material markaad u baahantahay waa kuwan materialku dhammaan kugu jiro somaadkan bathroomiska waxaad dhigi lahayd bediska sariiraha waxaad dhigi lahayd inuu sariirahaas oo kale waa kuwii halka qof seexanay kana waa kuwii labada nafar ahaa ee labada qof seexanayeen kan isaga halkan buu inoo yaalaa somaadkan marka tusaale ahaan aad wareejinaysana waa intaad hore aan soo dhiganay keliga baad siinaysaa control plus e hadda taleedna waa caadi soda 90 degree ma kale haddaan ku wareejino 90 degree haddaan wareejino markaan wareejino imika waxoogaa noo soo qaad halkaasoo kale noo dhig halkaasoo kale markaan noo dhigto sayda tan halkaasoo kale taala moogta qaybtaa yaree carpetkaasna waad gelin kartaa carpetka sidoo kale carpetka imika tusaalaantan markay sariirtii noo tahay waayahay carpetkana waxaad ku qoraysaa marka objectiska tagto halkan haddaad carpet ku qorto kala dad carpet haddaad ku qorto uu kuu soo baxay moogta imkan waa gawaaridii laakiin de carpetku kaas noqonaya sababtan sorry waxay haleeltaa sariirta highlightka waa ka qaado carpetka kale marka aad ku qorto find tiraahdo carpetka carpet carpetku okasi xaga soo dhigo xaga marka soo dhiganaysa de sidii si lamid waxaad sameynaysaa haddaad wareejinayso ood qaabka kale u dhigayso marka tusaale ahaan oo kale haddaad u dhigayso qaabkaas oo kale waxay noqonaysaa inaad halkaa dhex intaad qabto control plus e kadibna de waxa weeye aad 90 degree aad wareejiso marka waayahay soo qaado halkan dhig waad weyneysan kartaa tusaale ahaan oo kale haddaad stretch caadi shapekii aad tagto shapekii stretch haddaad tiraahdo caadi wey haddaad qabato waa caadi halkan waad weyneysan kartaa roog yaro weyn waad ka dhigan kartaa soo arag waayahay kuwaas waxay noo yihiin markaa master bedroomskii iyo alaabtii aan dhiganay master bedroomkii iyo alaabtii aan dhiganay waayahay sidoo kale dee waxay noo haray sariirihii yaraaye halkan far ahaayo kale kuwan waa sawirada iyo markaad u baahan tahay meelasha inaad dhigto ubaxyada xarfaha inaad ku qorto waxyaabahaas weeye laakiin kuwan oo kale imika sariirta markaan usoo noqday kuwaas oo kale waxay noqonayaan kuwan somalida kan dhexda soo qod xagga soo dhigo waxaad sameynaysaa control plus e haddaad tiraahdo dabacaadi waa waayahay haddaad 90 degree aad wareegto 90 degree
iminka madaxeyga halkan weli ujeedaa uma baahni maanta waxaan u baahnay markaa inaad control plus e tiraado waxaan wareejinaynaa 190 diiwaan ball state wareeg way inta imika right click hadaa siiso oo move ka tagto oo drag multiple copy aad tiraado dee tulabaad xagga waad saaran kartaa mid xagga waad dhigan kartaa adoo isku yarto toosine tu kaloo yaro toosan kalena waad dhigan kartaa sariir kale xagga waad dhigan kartaa isku yaro toosi badanta koornaheeda kalena mid dhig soo dara marka waxay noqonayaan iyaguna sariirihii bay noqonayaan sariirihii miiska cuntada halkan noo yaala kuwaan miisaska cuntada iyo kitchenka haddaan dhignayn sinof sidoo kale waxaad sameynaysaa objectiveskii waxaad tegaysaa sidoo kale waayahay inoo soo qaad objectkii haddaad dee toilet iska u baahan tahayna waa caadi ama bathkii bathroom yar odhan jiray waay bathroom iska dee tanoo kale way noo taalaa bathroom iska tag tan way noo taalaa maogta iyo sixir kana inoo yaalo soo ka qarsan dee wuxuu noqonayaa kan ankalmentia loo wareejinayso control plus e 90 degree waayahay sidoo kale halkan waxaa ku yaalaa qaybtii kale suuliga ee lagu fadhiisay qaybtii fadhigii kan naftiisa waa wada baadkii laakiin toiletiskoo kale dee iyaadis inta badan saa laga hela toiletisko kaasuma kaas waa suuray qaybaadka ka qaad kuji sorry hoos waxaa soo qaad hadda gidaar baa ku jira kalley imika dee haddii tusaale ahaan edit aad tiraahdo xoogaa yaro yareynayso xagga size oo kale or shape tiraahdo stretch resize stretch haddaad tiraahdo kala jiid haddaad soo yaroobay waay sidoo kale waxa weye objectiveska markaad tagto meeshii faradhaqi wey kana qaybta sinkigaanada waa inta kitchenka oo kalete kitchenka kale kuwani waa qaybtii faradha weelka lagu dhaqayay
waayahay okay cashirkeenu kuley qeybta banaanku sidaas intaas buu ku ekaan doonaa cashirkeena maanta halkaas baan kasii bilaabi doonaa insha allah 3D-giisa inagoo qeybta barandaha iyo qeybta kale farandaha labadaas waxa weeye farandaba waxaan sameynaynaa inaynu railing ka dhigno ama gidaarkii aynu hoos ugno sidii kuwii hore aynu sameyno insha allah alkariim maanta cashirku halkaas buu ku eegyahay asalaamu calaykum